dhalashada gorgorka. Taariikhda gorgorka. Gorgorka waxa uu leeyahay cimriga ugu dheer noocyadiisa. Waxa uu noolaan karaa 70 sano. Laakiin si loo gaaro qafiskan waa in ay taageerayaashu gaadhaan go'aan adag. Sanadkii 4aad waa taalan jilicsan oo dhaadheer, mar dambe ma dhici karaan wax ugaadhsad ah oo u adeega cunto. waa af dheer oo foorara. waa duqow baal culus, qaro weyn ayaana xabadka kaga dhagan, duulimaadka ayaana ku adkaada. markaa gorgorka waxa uu hadhay 2 ikhtiyaar oo keliya: inuu dhinto ama in loo maro hanaanka xanuunka badan ee isbeddelka. hawshu waxay u baahan tahay in gorgorka u duulo buur dusheeda oo uu fadhiisto ama waa buulkeedii. halkaas ayuu garhkiisa ku garaacaa ilaa uu ka soo baxayo. kadib gorgorka waxa uu sugi doonaa biqil cusub oo uu ku soo baxo ilaa uu ka soo bixinayo guntiimaha. kolka gorgorradu dib u soo baxaan, gorgorka waxa uu bilaabaa inuu gooyo baalasha adag ee culus. wixii ka dambeeya, gorgorku waxa uu qaataa duulimaad caan ah oo dib u dhalasho, wuxuuna aad u noolaadaa muddo ku siman 30 sano. maxaa loogu baahan yahay isbeddelka? inuu badbaado oo noolaado. innaguba waxaan bilownay hawsha isbeddelka. sidoo kale waa inaan ka xayubnaa xusuusteenna xumaanta caadooyinka xunxun iyo maskaxda go'an. kaliya laga xoreeyay culayskii hore ayaan ka faa'iidaysan karnaa madaxweynaha. aan mar kale kor u kacno.